iska sax jadwalka saaka waxaa inoo wadaa quraac iyo qado iyo casiriyo maasha Allah tabaarakallah muuqaalka la dhama daabo si aad uga faa'iidaan haddii aad ku wareertay jadwalka cuntada muuqaalka faa'iideyso bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta idin salaamay waa walaashin farxiyo kushiin maanta muuqaalkeen waxaa waa iska sax jadwalka quraacda ujeedaan canjeelo iyo maraq dhinaca kale kan casiriyo waaye asagana rooti duduub oo qaab casri ah loo sameeyay maasha Allah iyo bariis daabasho wacan markuu hore waxaan soo qaatay quraacda hore inaan sameysto galey ayaan soo qaatay bakeeriga haafkiisa makiinada ayaan kusoo shiidayaa galeyda waxaan rabaa inaan daqiiq ka dhigo si fiican iigu shiido galeydaas waxaan rabaa inaan ka sameeyo macnaha canjeelada waxaan soo qaadanaa ujeedaan saas iigu soo shiiday maasha Allah soorta haystada isticmaali kartaa laakiin ana galeyda caadiga ah dabiicigan soo shiitay intaas kadib bakeeriga haafkiisa oo galey ah iyo 3 bakeeri oo bur ayaan isku soo darayaa asxaabtigu cusub qalbi furan iyo walineed saafi soo dhawaada 3 bakeeri oo bur ah bakeeriga haafkiisa oo galey shiidan kadib waxaan ku darayaa sokor ilaa 3 qaado sokorta adaa ku badin karo adaana ku yareen karo qiyaasta marka sameynaysa ay ku xiran tahay intaas kadib waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah kadib waxaan ku darayaa qaadada haafkeeda oo qamiir ah ama leebato ama fixiso qofsu u yaqaano intaas kadib baaquliga ugu yar mis dhahdeen baaquliga weyn ku soo wada gadinayaa wixii dhan marka hore waxaa la rabaa inaad isku qastid intaadan biyo ku darin xabad ukun ku soo darayaa ukunta qasab ma ahan waad ka dhaafi kartaa waadna ku darsan kartaa haddii aad rabtid kadib biyo qandacan ku soo shubayaa mashiinkaas gacanta hand blender u qaadanayaa waxaan rabaa inaan si fiican u soo shiido shaaha intuu ka karayo oo kaliya baad dhigaysaa burkina ujeedan saas ayuu kusoo baxay bacan afka saarayaa shaaha intuu ka karo baan dhigayaa 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo kadib waa kusoo laabaneynaa hadda waa kusoo laabtay oo howlo kale inta la qabanayo xaayada oo qamiirayso mahan anjaalada waa taas aroor hore hadii aad garaacdid yaa saas ay kugu soo qamiiraysaa bismillaahir rahmaanir rahiim canjeeladu waa soo dhameynay ugu dambeyntiina saas quruxda badan ayay ku soo baxday ma sha Allah waa ujeedaan inaba caadi ma ahan hadda waxaan rabaa inaan sameeyo maraq aad u macaan badan maraq hadii aad sida u sameysatid yaa faraha dhuqdhuq aan ku dhahay intuu ka baxaa leeyahay digsi aan dabka saaray digsi markaan dabka saaro waxaan isticmaalayaa saliid qumbaha aad saliid doonta isticmaal kartaa hal qaado oo saliid qumba markaan ku daro afkeeda oo xawaaji dhuub ah hal xab basal ayaan ku soo riday waxa baradho waaweyn oo aan si yar u soo jarjaray ayaan ku daray rubac oo hilib geel waa hilibkan waan soo kariyay si fiican ayuu u bislaaday hilibkii markaan ku daray kadib waxaan ku daray toon intaas kadib waxaan ku soo darayaa hal qaado oo xawaaji isku dardar ah hal koob iyo bar oo biyaan ku darayaa daboolkan dhab ku siinayaa yaanyo dhan ma lagu taaban rabo saaleel rabo inuu ku karo markuu diyaar noqdo ku soo laabanayna insha Allah qumbaha shiidan qumbahan waa sida caano booraha camal kadib marqi waa diyaar si idin muuqato ma sha Allah saas ayuu ku soo baxay waxaan soo jarjaray caleen nacnac ama mint iyo kabsar caleen kabsartii iyo caleen nacnac ayaan soo jarjaray ku daray kadib waxaan ku darayaa ilaa 3 qaado oo caano qumbaan ku daray hadaa doonto caano booraha ku bedelan kartaa dhib ma lahan intaas kadib waa dhex marinayaa qaadada daboolkan dhab ku siinayaa dabkan u yareynayaa 2 daqiiqo oo kaliya maraq waxaan ku dhahay lagama sheekeyn karo ma sha Allah dhadhankiisa diyaar u noqday hadda waxaan soo qaatay baaquli markaan ku soo gadiyay halkan waxaan u saaray waa caleen mint ama nacnac kadibna liina halka u saaraya ma sha Allah wixii iska qurxisid waaye hadii adiga xitaa cunaysid waa inaad iska qurxisid samahan canjeeladana waa kaas indhihiina idin macalin ah saas quruxda badan ayay ku soo baxday ma sha Allah quraacdii sheekadaas ay ku soo dhamaatay waxaan rajeynayaa ka faa'iideen ma sha Allah tabaarakallah quraacda dhan laga sheekeyn karin maraq daadan wali saa u sameysan soo tijaabi maraqa qumbaha aad u macaan badan yahay dhadhan iyo caraf lagama sheekeyn karo dhinaca kale to bariiska aan sameysanaynaa bariiska isticmaal badana kan waaye nuural dhaha nuura bariiskan bariis dheer oo furfur waaye 5 kiilo iyo 10 kiilo ku imaadaa waxaan sameynayaa kiilo wax yar dhiman ayaan baaqulig intaan ku shubo soo dhaqo ayaan biyo la dhigayaa
saacad hadaad biyo la dhigtid markaad karinaysid biyaha unbaad ka yareynaysaa. bariis dhaadheer uu noqonayaa. marka hore biyaan dabka saaray, biyihii markay karkareen cusbo iyo hayl aan ku daray, kadibna wax yar oo saliid aan ku daray, bariiskii oon biyo la dhigaan kusoo daray. bariiskan waxaa la dhahaa nuura, asoo 5 kiilo asoo 10 kiilo la helaa. bariis dhaadheer oo furfur oo kaal iska arag ah. bariiska noo bislaado kadib waan kusoo laabanayna. dhinaca kale digsiyan dabka saaray, waxaan kusoo shubay saliid markaan kusoo shubay kadib waxaan ku darayaa hal qaado oo xawaaji dhudhuub ah. xawaaji dhudhuub asoo sidiisa xitaa caraf uu ka dhigayaa. waxaan ku iraadaa maraqa ama waxyaabaha ku dareysid. kadib waxaan kusoo darayaa qorfe, kadibna basal oo aan si yar usoo jarjaray. basasha markay bislaato iyo yara gaduudato waxaan kusoo daray yaanyo ilaa 3 xabo, biyaan ku kariyo waan soo shiiday. kadib qaadadan dhexmarinayaa. qaadada markaan dhexmariyo kadib waxaan kusoo darayaa xawaajiyo. digaagaan rabaa inaan sameeyo, digaagii macnaha lagu sameyn lahaa lagu cun lahaa bariiska. waxaan kusoo daray hal qaado barbarooniga shiidan, maxaan ku iraadaa kabsar caleen shiidan, xawaajiyo isku dardar ah, toon, cusbo. intaas kadib hal qaado oo maxaan ku iraadaa ama hal baakad oo yariis oo maxaan ku iraadaa shiishiid ah. kadib waxaan kusoo daray digaag 1 kiilo. digaaga waa soo dhaqay, maqaarka korna waa kasoo fiiqay. intaas kadib waxaan soo qaadanayaa bakeeriga haafkiisa oo caano garoor ah ama plain yogurt. caanaha dhanaanka ayaa ku darsanaysaa, hilibka dhadhan ay u yeelaysaa, suugaan caadi ahayn oo kaaga dhigaysaa. kadib intaan leewaayo daboolkan dab ku siinayaa 45 daqiiqo lama hadlaayo. dabkuna u gaabinayaa dab yar oo laciif u baahan yahay maadaama biyo badan uusan lahayn. markuu diyaar noqdo ay kusoo laabanayna bariiskii diyaar waa ugu dambeyntii. hadda waxaan kusoo darayaa si fiican ay u bislaasa ujeedaan bariis si caadi u bislaynaysaa. lama miiraayo, mar labaad dab lagu maceelinayo. intaas kadib waxaan soo qaatay kalar gaduudan iyo kalarka jaalaha ah. labada kalarkan kusoo dadaadinayaa. intaas kadib daboolkan dab ku siinayaa. markuu diyaar noqdo ay kusoo laabanayna insha Allah 5 daqiiqo loo dhaafaya. hadda waan kusoo laabtay, diyaar waaye. qaadadan dhexmarinayaa. bariiskii sheekaysan ayuu kusoo dhamaaday. biryaaniga oo la isku karinayo hadduu ku dhibay qaabkan aad u fudud yahay, dhadhankiisa waxaan ku dhahay faraha la isgoosanaya, lagama sheekeyn karo. maasha Allah tabarakallah. intaas kadib digaagii diyaar waa saas ayuu kusoo baxay. ana sufriyada ka bedelay maadaama suugadiis aysan badnayn, sufriyada aan ku sameynayna aad u weyneed. kadib 4 xabo ukun biyaan ku kariyay waan kusoo riday. daboolkan dab ku siinayaa 5 daqiiqo kadib waan kusoo laaban doonaa insha Allah. asxaabi waxaan idinku codsanayaa muuqaalka inaad share gareysaan, like noo saartaan, baryahan like-tiin iyo share-tiin aan ugu yaran fahanteen. wixii wax ka faa'iideysid meel dheer la gaarsiiyaa. aad u mahadsantihiin. intaas kadib bariiskan saxan kusoo riday, digaagii macal suugadiisii macal ukuntan soo dul saarayaa. run ahaantii alaabta waxaan ku dhahay digan waa lagama sheekeyn karo maasha Allah. qadadii sheekadaasaan ay kusoo dhamaatay. dhinaca kaleeto burkii oo noo diyaarsan un baan rabaa inaan habeeyo. burkana waa sida burka caadiga loo qaso, sida maxaan ku iraadaa burka rootiga. bur iyo biyo iyo khamiir iyo wax yar oo sokor, wax yar oo cusbo isku qasaysaa. kadibna waa dhigaysaa. markuu soo khamiir kadib waa kusoo laabanay. mar badan burka noo qasay soo geliso maahan caadi ah, burka sida loo qasanay un baa u qasanaysaa. kadibna waxaan soo qaatay 2 qaado oo subag ah, qaado qorfe ah, hal qaado oo sokor ah. waa isku qasaysaa si fiican. rooti qorfe waaye, rooti duuduub oo maxaan ku iraadaa qaab casri loo sameeyaa. maasha Allah aad u idin anfici doona, aad u fudud yahay. alaabtan lagama sheekeyn karaan ku dhahay maasha Allah tabarakallah. alaab aad u fudud run ahaantii. rooti qorfe haddii hal nooc leh u taqaanay noocan usoo sameyso. intaas kadib burkii oo dhan ba hal mar aan fidinayaa. burkii oo dhan markaa soo fidisid kadib waxaad sameynaysaa subagii iyo qorfihii shiidnaa iyo sokorta isku soo qastay ayaad marmarinaysaa. kadib waa soo laabaysaa. intaas kadib mindiyaa soo qaadanaysaa, saas ay u goynaysaa. burka hal dhinac markaad ka marisid waa isku soo laabaysaa. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen insha Allah. intaas kadib mindiyaa soo qaatay, saas usoo gogoynayaa. kadibna mar labaadaan goynayaa. waxaan rabaa inaan duuduubo ilaa halkaas ayaa u geynaysaa. jeexasa ujeedaan, saas u jeexaysaa. kadibna saas isu daba marmarinaysaa. saana isu daba marmarinaysaa isagoo dhan. mid walba 2 qayb camal u goynaysaa. saas u duuduubaysaa. intaas kadib waxa sameynayaa waa soo duuduubaysaa. soo saana ayaa duuduubaysaa. kan aad u fudud yahay maasha Allah. markaas u duuduubno hore lagama karinayo. waxaan dhigayaa ugu yaraan 30 daqiiqo. bac qafiif afka saaraysa ama foornada ku dansan ayaa gelinaysaa. saana u soo sameynaya dhammaan saa ujeedaanba. 30 daqiiqo kadib waxaan soo qaatay hal xabo ukun. ukunta soo garaacaya. waxaan rabaa inaan dusha ka mariyo.
foornada kulula gelinaysaa 180 dabkana kor iyo hoos 20 ilaa 25 daqiiqo kadib waa kasoo saari doonaa insha Allah. rooti duuduubka waxaa lagu cuni rabaa afaarahan ayaa lagu daadan rabaa. waxaa soo qaadanaysaa 2 qaado oo loos shiidan bakeeriga haafkiisa oo malaba intaas isku qasanaysaa. badalka caanaha macaanka afaarahan kaaga fiican waa kaasa ma sha Allah saas ayuu ku soo baxay rootigii duuduubka ahaa ama rooti qorfe ugu dambeyntii waaw ma sha Allah tabarakallah si qurux badan inaba caadi ayuu ku soo baxay dhamaantii waxaan ku codsanaa muuqaalka noqdkii ugu like badnaa muuqaalka like noo saara share gareeya oo aad ku mahadsantiin daawashadiina commentidiina iyo waliba dhiirigelintiina waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen waxa idinkaga taa khayr caafimaad ma salaam